maanta waxaan iskuulka u imiday la keenay caruurta oo markii hore u awoodi weynay balcadda iyo buugta maanta alla mahadi weeyaan waxaan ugu mahadnaqnaa wasaaradda nooga dhigtay bilaashka buugta iyo balcadda. wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal ayaa waxay maanta dib waxbarashadii ugu celisay ku dhawaad 1500 oo arday kuwaasi oo tahli kari waayay in ay sii wataan waxbarashada kadib markii ay soo wajahday xaalado kala duwan oo ugu horeyso dhaqaale la'aan. wasaaradda waxbarashada ayaa waxay ardaydaasi maanta siisay buugaagtii ay wax ku baran lahaayeen, dirayskii ay ardaydu wax ku dhigan lahaayeen iyo sidoo kale waxbarasho firiya. ardaydani oo ku kala nool degmooyinka kala duwan ee gobolka Awdal ayaa daraasaad ay dhawaan wasaaraddu samaysay lagu ogaaday in tirada ardaydaasi ay gebi ahaanba duruufo kala duwan uga fadhiisteen waxbarashadii. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal oo ka warramay arrintani ayaa waxa uu sheegay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska guud ahaan heer qaran iyo heer gobol khaasatan gobolka Awdal waxay dardar ugu jirtay sidii ay ardayda aan xogtooda hore ula wadaagnay bulshada aanu dib ugu soo celin lahayn dugsiyada. xaqiiqatan reportkii aan ka diyaarinay ama xogtii aanu ka qornay degmada Boorama anagoo ka duulana ayaa waxaanu dhaqan gelinay inaanu sameeyno guddiyo heer degmo ah oo degmooyinka kala duwan ee gobolku ka kooban yahay si loo address gareeyo ama loo dabagalo oo loo daraaseeyo ardayda ka maqan dugsiyada farsamadii marka iskuulada dib loogu soo celin lahaa. degmooyinka ugu tirada badan ee ardayda ugu faraha badan aanu ka soo record gareynay Boorama ka ahayd sidan hore idinkula wadaagnay ardayda aan xogtooda sida rasmiga u helnay ee dugsiyada dhigan oo 1150 arday ahayd out of 3450 arday ayaa dib aanu iskuulada waraaqa ugu qaybinay si ardaydii loo record gareeyo oo deetana leefaladoodii dib loogu qoro. sidaas si lamida ayaa waxaanu uga dhaqan gelinay degmooyinka Qulujeed, Dila, Baki iyo Lokhaya afarta degmaan iyaguna raacinay. ilaa imika ardayda rasmiga ah ee aanu iskuulada dib ugu soo celinay guud ahaan waxay dhan yihiin 1429 arday marka afarta degmo la isku geeyo. degmada ugu tirada badan waa Boorama oo 765 arday ka soo noqdeen halka degmada Dila 365 arday ay dugsiga dib ugu soo noqdeen. Lokhaya 102, Baki 117, Qulujeed oo ugu tira yarna waxa dib ugu soo noqotay 80 arday. marka ardayda majority-googa waxaanu tixgelinay laba level inay yihiin level grade 1 oo runtii majority-ga ahaa oo 813 arday ah. inta kale intii daraba autiska ahayd ee levelada grade 1 ilaa 4 la qabatimi lahaydna gradeadoodii baanu geynay. waxa kale oo iyadana kamid ah qaybaanu ABE inay yihiin aanu u tixgelinay oo ha ugu badnaadaan degmada Dila iyo Boorama inay team ABE ama alternative basic education ardaydaadii class-koogana dhaaftay laakiin loo tixgelinayo inay iskuuladii soo join gareeyaan oo fasal ABE aan u furnay baa jirta. waalidka iyo ardayda guud ahaan runtii barnaamijka aad bay u hambalyeynayeen waxaana ahayd runtii shaqooyinkii ugu waaweynaa ee wasaaradda waxbarashadu ay ahayd inay qabato. xaqiiqatan Ilaahay noo fudeydiyay waxaan u mahad celinaynaa oo arrinkan nagala qayb qaatay guddiyada degmooyinka ee waxbarashada haydtuulaha khaasatan degmooyinka Baki iyo Lokhaya iyo Dila iyo Qulujeed. intaasi kadibna qaar ka mid ah isla ardayda maanta waxbarashada dib loogu celiyay iyo sidoo kale waalidiintooda oo iyaguna ka mahad celiyay ayaa waxay sheegeen wasaaradda waxbarashada hawsha ay noo keeneen iyo waxbarashada ay dhiirka geliyeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ugu mahadnaqaynaa. marka macallimiinta martay xaafadaha oo ardaydii ka baxday iskuulada ee awooddu saamixi weyday inay dib ugu noqdaan noo yimid oo yidhi wax walba waan ka bixinaynaaye ku soo noqday iskoolkii saasayna ugu soo noqdeen insha Allah haddii alla ilaahay hadduu nala qabto. maanta waxaan iskuulka u imiday la keenay caruurta oo markii hore u awoodi weynay balcadda iyo buugta maanta alla mahadi weeyaan waxaan ugu mahadnaqnaa wasaaradda nooga dhigtay bilaashka buugta iyo balcadda. magacaygu waa Abdiraxmaan dugsiga waxaan jecelahay gabdhe inaan wax ka barto inaan madaxweyne noqdo. markii hore waxbarasho ma dhigan jirin laakiin imika waan ku biiray
waxaan doonay inaan waxbarashadii dib ugu noqdo waxaana wacyigelin siisay wasaaradda waxbarashada walaal in badan waan isku dayay inaan ku noqdo laakiin waan awoodi waayay laakiin imika diyaar waxaan ahay inaan iskoolka dib ugu noqdo markii aan ka baxay iskoolkayga waxaan dareemay waxaan arkay dadka faacayga oo dhiganay waxbarashada horta markii ugu horeysay waan ka naxay laakiin markii dambe la guuri wasaaradda ku doonaysa laakiin waan ku farxay markii la guuri wax lagu celinay iskoolkaagi shahaadadaadi waa doonaysa markii la guuri waan ku farxay waxaan doonaynaa mustaqbalkayga naayrasad na noqon doonaa